kadib dhacdadii murugada lahayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho isla markaasina lagu dilay odaygii 42 sano jirka ahaa isla markaasina wiilkiisii guursaday gabar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee beelaha foorka loo yaqaano ayaa waxa arintaasi ka hadlay gabadhii la guursaday waa dhacdo murugo leh oo la yaab leh bal gabadha oo arintaasi ka hadlaysa nala daawada رقية عبد الله محمد waxay go'aansatay inay la noolaato maxamed cabdiraxmaan mukhtaar oo ah wiilka ay nolosheeda u doortay waxana ay sheegtay in jacaylka uu ka weyn yahay qabiilka Soomaalida ayna dardaaran ku tiri qofka bilaadanka duu qof jecel yahay qabiilna ma ishtaabo qabiil dhamaan wali qabiil ma qiimeyn maan yaa taa ma badin ana qofka bilaadanka da jeclaatid qabiilkiisna weydiina maxaa soo jeedinay Soomaalida idin daawanaysa maxaa kula talinay waalidiinta dadka isjecel maxaa talo u jeedinay qabiilkina iska dhaafan qabiil waa laga dhamaad ma aan qabiil meesha ma taale dadka wara ku dhaqmi jirnay madaxan waarid qabiil kuma adeegan dad la isku dimaa macna dad la dhiig leen isku daayay macna qabiil waxa taraa mana qofka bilaadanka da si dhab u jeceshaan qabiil dhan weydiinaysa war hoy dunida yaan lagu kibrin nabad ha loo daayo maxamed cabdiraxmaan mukhtaar oo ah wiilka sheekadani ay ka bilaabatay ahaana wiilkii ay ruqiyo cabdullaahi maxamed ka dooratay ragga sidoo kalena ah wiilkii uu adeerka u ahaa marxuumka geeriyooday ee u gargaarayay jacaylkooda ayaa sharaxaya sida jacaylkooda uu ku bilowday wixii ay isla soo mareen iyo miraha ka dhashay jacaylkooda laba sano wada socnaa gabarta walaasheeda ah kulay hawarteeda hawad waa sal deganahay xaaladeena waa ka warhay jireec ala wada yahay laakiin dhanka diinta bilaadanka oo waa isku hal muslimaan ina dhaada gaal waay xaraan u yahay gabarteeda ma ku xarmo jireer waay ee waay xaraan waay marka ma bi ugu xarmato gabarteeda ma ku xarmato marka aniga mana qabataa inaa qofka bilaadanka muslimka inay saas loo sidoo kale waxa arintaasi ka hadlay qoyska marxuumkii la dilay oo sheegay in ay aad iyo aad uga xun yihiin wixii dhacayna ay tahay wax ka baxsan diinta islaamka isla markaasina loo adkeysan karin dhacdooyinka ay ku sameeyeen dadkaasi shanay ayaan adiga wiilka inta lagu soo weeraray warna lagu mudi faasa lagu dhiftaadane oo dhacay asoo dhacay taabaan ah bas inay ku shaqeeyaan way gubiyaan oo dhintay markoo dhintay wiil ay si garaacay qab aaway dadka xaafada joogay aaway marka waxas dhacayaan dad ma jooga xaafad dibada wiilashu inta ka shaqeynaa asaga la shaqeynaa taa ma joogin wiilka gabadha qabo aabihiisa iyo habartii maxkamadda laga wacay shalay maxkamadii ay journalist ku haysta ameedkana dhaca xagga la geeyay bas waa la wacay gudbiya idinka intii mid laba gabdhood ay helaan ay qabsadaan wiilasha waa kala ordaan aan wiilka cidna say ugu fiicnaa ninka gacanta i waayo ahay bas ninka cid uroonayo ahaa bas si gaaro yahay ilmo badan waa ka tagay waxa uu dunidan uga tagay 12 caruur oo ay ugu yartahay gabar 3 bilood jirta iyo laba xaas waxaana sharaxaysa qaabka ay wax u dhaceen Saciida Aways Xaaji oo kamid ah xaasaskiisa isla markaasina ahayd bahda weyn ee marxuumka mootan gabadhii wiilka markii la saraacsiiyay waxay tiri iima ahaatay tiri abgaal iyo jareer ay heshiiyay man ii noqoto war walaal islaam leeyahay ummadaan ilaaha abuurtay islaamka oo dhan way isguursadaan mayay tiri jareer haranoo naga yahay ma guursano waa gabadha hooyadeed habarta 3 bir miya 2 bir xorneed dooda way socotay shalay maxkamad in lagu soo kala baxo gabadhina waa bala keenaba yacni arinta la xaliyo markay raggiina maxkamad jiraan ay ogaadeen guriga dad ay joogan Axmed kaligiisa meeshan ku shaqeynayay Axmedkii banaanka ugu yimideen ay ku dileen la xiro waxaad sharaxdaa bal qaabka dilinka u dhacay Allah si xun ay u dileen dil aan sheegi karo ama afkeyga soo mari kara ma ahan noloshay ku gubeen iska dhaafay islaam qof ah yuhuudka xataa saas looma dilo see yeeleen qofta isku kordamisa anigoo ahaa xaaskiisa weynaa ahay
si xun ay u dileen axmed way dandareysteen way dileen allah miskiino ah weligiis dad ma dulminin hooyo aab dadka u ahaa dadweynaha waa la yaqaana caalamkao dhan aa laga ogyahay dadka arabtiin weydiiya banaanka baxa qofka arabtiin wareysta walaalayaalo waa idin baryaa iigu duceeya ninkaas dadka dilana ilaaha ka sabaabina insha allah wax kaloo sheegi kara ma laha qaar ka mid a carruurtii uu ka geeriyooday marxuum axmed mukhtaar saalax ayaan kala sheekaystay dareenka ay ku reebtay geerida aabbahood iyo sidii ay wax u arkeen. aabbe waxaa makal dili waxaa lagu dhuftay baangada iyo waxaa lagu waxeeyey imindigo oo geedka sun leh ay baar geliyeen. adiga kaali soo dhow magaca cabdixafiid ii waran bal maxaa shal dhacay? aabbe iskaliisa inta ku shaqeeyay dhalinyaro kale laba u joogtay waa ka tagtay iskaliisa loo imaaday adeerkii waa maqnay iskaliisa loo soo jeeday in lagugu yaso qabiil aad ka dhalatay wax weyn kama aha Soomaaliya waase dhaqan laga soo minguuriyay juhulo aan diinta islaamka haysan xilliyadii adoonsiga uu ka jiray dunidan. Soomaalida qaar waxaa ku dambeeya dhaqanka haybsooca guurka oo reerka gabadha ku kalifa inay u diidaan gabadhooda ragga geeya iyaga oo ka cararaya inay in ku noqoto hadhow. su'aal ku adag ka jawaabisteeda qof walba oo mas'uul ah kuna saabsan haybsooca guurka ayaan hordhigay xildhibaan cabdifataax oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. adiga waxaad ka mid tahay xildhibaanada aniga igu matala baarlamaanka Soomaaliya aniga hadda kula hadlay marka Soomaalida xildhibaanada baarlamaanka hadda ka jira xildhibaan walba waxa uu ku matalaa beelaha ka jira Soomaaliya aniga adaa igu matala haddii aan maanta ku dhaho madaxweynaha gabadhiisa waa Farmaajo ama ra'iisul wasaare gabadhiisa ayaan isfahanay oo inaan isguursanaan isku fahanay ma kula tahay inaad ii dooni lahayd mase kula tahay inay siin lahayn ayaga? horta waa mahadsantahay shaashaale guurka sidaan kuu sheego waa isfahan u dhaxeeya labada qof inay raadi isaga noqdaan. ataraadi waa shardi ka mid ah asaaska isguursiga. waxyaabaha kalena horaan kaga hadlo diinta kuma xusna. waalidka maanta Farmaajo haddaad ka doonatay haddaad kheyr ka doonatay ayaga waxaa u bannaan inay ka fiiriyaan ilaan madaxdii dalka waaye inay sharciga ilaaliyaan loo baahan inay ka fiiriyaan sharciga iyo diinta waxay ka qabto. shaashaal haddii ku soo baxdo inuu dilaa yahay mooryaan yahay inuu fidno wada yahay inuu balwad la yahay inuusan mas'uuliyad qaadi karinna xaq waxay u leeyihiin inay yiraahdaan gabadheena bohol kuma toori karno. laakiin intaasi waxaan ahayn hadday ka hor yimaadaan oo automatically ay yiraahdaan shaashaale waa beesha jareer weyne ay yiraahdaan taas waxay tahay haddee waxaan ku wada joogno oo sharci ah ma jirto. sharci aan wada ilaalinayno ma jirto. nin walba waxa waaye dhankiisu waxa waaye ka daranaya. marka aniga waa ku dooni lahaa jawaabta laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay wada hortaala aniga aadaba markaan u doonano. dhacdadan ayaa noqotay dhacdo ugub ku ah Soomaaliya waana markii ugu horeysay qof nool la gubo.